طبعا دي سلامة دمانتين بقى وبدنتين سؤال هذا عبد الله هاي أرتا دول كان سومالي لان بالعراق أمة سومالي لان العراق أنا إسكالي سلم معها قلبا من دوبارة يتوك سعر رأيو نمانكي شالي طالع حمر كهالي إلها محي هايدا يعني هانتي دا قرن كان سوعي سومالي لان بهانتي ونغطي iyagoo soo jeeda riyoonaya dadku markay hurdaan bay riyoodaan dabeedna way soo kacaan waxay xalay waxaasan ku riyooday waa iyagoo soo jeeda ee ummadda maxay ahaydeen Somaliland degan halkeeda habbi ku tahay halkeeda nabad ku tahay nin duuna raaci u jira oo deeydin imanaya oo ka waa nin idin kale wax idin ka soo dhacsanaya halkana iskaga dhigay inuu matalo nimay seefka qaadabal nimay soorika qaadaba nimay seefka qaada waxaan laakiin u sheegaya qadaadweynta inta ku shaqaysata magaca qadaadweynta ilaa dadku isku wada mid maahe baa mushtari baa jira ummadu way isdhex socotaa iyo inta dhuuni qaatayaasha ka tirsan ee Somaliland ku abtirsata ummadu way tagaan xamar miyaad aragteen wali ninka reer koonfureed intuu halka yimaado yiraahda annagu haddaan reer koonfureed nahay Somaliland saasaanay maxaa kuwan waalay ama fanaan ha ahaado ama maxay haydeen wariyaha ahaado maxaa waalay kuwan Somaliland ah ee markay xamar tagaan uun adduunye saydi maxaa haydeen hunguridoon dhuuni raacayaasha dhuuni qaatayaasha ee xamar tagaya war tago ka soo shaqayso waxa doonta ka soo qaado ila lacagta cunayaan kalidaa baa la tagaa kalidaa baa la hadlaa laakiin ummadaad matashaama jirto Somaliland ninna ma matali karo nin bina aadan oo matali kara ma jiro laakiin wax la yaabo ah inta waxa imanaya ummad reer koonfureed ay imanaysa oo maxay haydeen nabadda soo doonanaysa wali lama arag qof reer koonfureed intuu mikrafoon qaatay ila anigu hadaan reer xamar ahay waxaan ka soo jeedaa waxay dawladda xamar tiri la maqli maayo laakiin kuwa Somaliland ah ee dhuuni qaatayaasha ee iimaanka beelay ee hungurigu qaaday ee maalinta 10 falar ku soo dhacana soo noqonaya soo cararaya waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Somaliland inuu airport-ka naga xiro inuu seminaarada tunka lagu wada sitay maxay ahaydeen nabadaan ku qabsanaynaa ay leeyihiin naga xidhaan oo naga qabataan waa aafa weeyaan dad quluna weeyaan dad xumaan u jeeda weeyaan dad doonaya inay Somaliland xumeeyaan laakiin waxaad ogaataan Somaliland way fakartay waana jirtay horena way u jirtay dibna way u jirtay wax ilaaha abuurtay oo ugu talagalay inay jiraanna walaa farmaajo dimin kara walaa khayre oo ku raaxaysta codka oo maxay ahayd war cod laguma noqdo maxay hayday madax cod bal horta caadi u hadalo khayrow adigu hadaad hadlayso si caadi u hadal waxaad u haysataa codkeena hadaan sameeyno wayna ka sameeyno yaa ka dhageysanaya waxaanad xukumin fiila Soomaaliya aanad xukumin markaad fiila Soomaaliya horta xukunta dadka la hadal oo inta xamar joogta la hadal kuwii xamar joogay baa ku gubanaya oo leeynaysa maalin walba oo idinku dhaxdiinayso iska dilaysaan oo iska leeynaysan anigu kuwa Somaliland ta yiraahdo walaalaha iyaga Soomaaliyana waxaan leeyahay joojiya kelmadda weligood iyaga hadlaya oo maxay ahayd walaalaha iyaga reer hebel iyo walaalaha iyaga dalkaas wax walaali ma jiraan waa laydin doonayaa in laydin xumeeyaa la doonayaa Somaliland doqonimada inta iska deysaan dhiig baa la haydan dad dhiig la haydeen xagee dhiigini maray ma tuun baa laydin kaga nuugay warka ka cawrdada oo naga daaya sheekada yar gaaban ah walaalaha Soomaaliya walaal malnihin waxba isbanin aan shicibka ma sheegay laakiin afarta siyaasiyiinta baa sheegay waxaan walaal malnihin oo waxba iskubanin oo waxaynu kala nahay Ciisa bidiin Muusa bidiin shaqo iskuma lihin laakiin ninka riyooday shalay toole ay hantida dawladda la soo wadakada barbara duubi ku duubmaysa taalmid dhurka iyo wadad riyoonaya qofku haduu isagoo soo jeeda riyoonaya wuxuu soconayaa badda barbarana waa dhuri kartaa kaale dhur badayada kaale dhur oo qaado oo maxay haydeen maxay xamar geed wallahi billahi tala wad riyoonaysa ka tali inta ka talin karto ee aad maxay haydeen guriga yar ka qaadato oo dhuunigaaga hayso qoonsan baan ku ka tagayana kaydiin manayana xamaray waa ku halkan ku fashilmay oo dhuuni raaca yaa waxa la yiraahdaa xabaashu ma socotay qofka socda xabaashi bay u yimaadeen aasa si fiican oo aas qaran u sameeya annaga naga dhinta kuwaas laakiin madaxweynaha Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa
kuwa maanta tagay xamar ama wariyaad umadu way ogashahay waxba social media hani afartan ku jira umadu inta social media ma ogaada umada Soomaaliland waxay ogashahay ninka xamar tagay ama wariyaha ahaado qofku tay kara wariyuhu ka soo shaqayn kara laakiin wariyaha intuu xamar is dhex taago mashruuc ku soo qaatay Soomaaliland wax ka sheegaya inaad naga qabataan waxa weeyaan sharciga inaan gacanta ku qaadano maaha oo iska celin karnaa laakiin sharcigaanu ilaalinayna naga qabta dadka naga qabta midda kale ninka u haysta Somaliland inay hadal yar wax ku noqonayso wallahi waa hurdaa xamaray xajista numberka baan ku xajiso heestani waxa weeyaan aku barashadeeni waxaan ugu soo qaadan waxa weeyaan barashadeenu Soomaali weyn baan raadinayna waan weynay dooni mayno imkana idinka Soomaali baabiyay idinka baabiyay ummadii idinka maxay haydayeen waxaad noqoteen geed xargalay oo marka saa loo taabo dhushoranaya ayaa noqoteen marka walaalayaal idin dooni mayne nadaayo ninka shalay yiri waxa doonayeen hantida qaranka la soo celiyo wuxuu idinka jeedinayaa target markay doonayaan siyaasiyiintu inay wax jeediyaan bad kale dadka ku furaan la xisaabtama waxaad ku tahan dalkan iyo dadkan maxaa u haysaan kuwa soo hadlaya maxay haadeen Soomaali baan nahay Soomaali waan nahay Soomaalida anaga idinka jecel Djibouti baa Soomaaliya kililka shanaad baa Soomaaliya NFD baa Soomaaliya maxay haydayaan laakiin kuwa nabadda haysta waxaan kula talinaynaa inay nabadooda haystaan waayo xamar waxa ma yaalaan intii joogtay ku gubanaysa waxa yaala adduun xaaraana shilin xaaraana oo dhiigga Soomaalinimo lagu qaato oo ummadda lagu laayo oo ummadda lagu qarxiyo oo ummadda lagu ololiyo oo lagu baabiyo ayaa yaala intaana waxa ka dambaysa waxaas waxa ka dambeeya dawlad ku sheegta ضعيفة تاعتها درن تبرت ير مدينة قناعة ضد يا قناع محمد والدولة محمد هاي صوت محل وجوده محل بوكسية دوامرها كنت ودواها كنت يسوشاها وقال ويني بدأنا كم حوالي من السلام وأنا كبوكسوني يا وآدم وبوكسوني وحلي ومدة أنت Somaliland دلكينا يدكينا عياد وحكتي وحبكمتي مالك لكن دون قاسيان القاضي كاس عبط كغلب كل ما نسى Somaliland بانو معي كSomaliland كSomaliland وحكي شيء أنا وان صور دقينا وان مسكيننا أنا وما عيتنا لكن روتان وشجنا dadka intaanu garanayna wanaagsan oo soo dhigay aniga page-kayga ku dawqira ana iskale waxaan doonaa soo dhigaya qofkii aan garanayo taariikhdiisa iyo noloshiisa sharaf iyo karaamo iyo maxay haday xilba wanaag banaga mudan waan soo dhigaya ana iskale page-ka qofkan taariikhdiisa inta waxba ma soo dhigi karo xamaray xadisan numberka xabaal baad u egtay xamaray xadisan